waxaan idiin soo gudbiyey 2 maalmood ka hor agaasimaha hay'adda socdaalka Mustafa Dhuxulow 2 maalmood ka hor iyo 3 maalmood ka hor saakaa lagu dhawaaqay golaha wasiirada ansixiyeen xil guntade inuu wax og yahay taasuu kugu sheegayaa shala duhurkii ayadoo xabaddu socoto aan waxaan idin raas kambooni waa lala wareegay maxaad ii soo qorayseen tuug dhalay ruufiyaan ay dhalay axmed madow abtigiisu raacay nacala aabbaha ku yaal hawiye maahid wacalaa ahayd barbar xaraan waxaasa ii soo qorayseen soo maaha niyo runta iigu imaada aniga haddaa runta iigu timaadiin ka warrama oo been oo dhanba aan ka daayo oo ay ii dulqaadatiin intaa runteedii beenteeda kala ogaanaysiin ii dulqaata waxaad ogaanaysiin waxaan sheegaa run inay yihiin bejkan iyo youtubekan ku soo xiran inaadeeru macaan u flow garee meel walbaba geli waa kaa codsanayaa qabiil waxba ku fali maayo cidna wax ku fali maayo keligayaan maskaxdaydaas caqligaygaasaan ka socdaa hadduu caqligayga intuu itusaayo ka badan aan ka hadlana dhiiqan lagu hala gelaya caqligayga wuxuu itusayaa qabiilnus waxba ii tarin aniga qabiilo kaale ii shaqeeya aniga kaala lacag isiyo guriga igu keen kaala kirada iga bixi kaala nolosha ciyaalkayga keen qabiilow ma ii keenayo waa sax ayad qur'aanaha sheegaysa qur'aanka in la isku aqoonsado qur'aanaha aa sheegaysa in la isku aqoonsado qabiilka laakiin haddaa intaas ka badan sii dhaaftid dhiiqay noqonaysaa ilmaadeerayaalo halkaan maana imaadeen anoo nin dhallinyarahaan imid qurbaha haddeertaana nin odayahan ah waxba ma taro bejkan soomaaliya iskale afka soomaaligan ku hadlaa ninka qaldanna waa ku sheegayaa ninkii saxanna waa ku sheegayaa soo raac sheer garee folowdhe subscribe-dhe wax walba ku qabo wax kale waxbaha ku falin saaxiibkay daahir calisow iyo walaalkay caliyaro cali aan u nasteexaynayaa waxay soo qoreen cayr ilaahay xilalkii waa laga wada qaaday sawirro tiro badanna way soo qaateen waxaan ugu nasteexaynayaa walaalahay daahir calisow iyo caliyaro cali ilmaadeerayaalow xataa caliyaro xil waa qabto muhiim oo qabto gobolka banaadir ilmaadeerayaalow daahirow social media adaan kugu hormaraya muddo dheeraa ka hadlaysa inaadeero ilaahan kugu dhaariyo intaa halgan gashay intaa dakana gashay hal nin oo habar gidira oo inta ku soo waca yiraa daahir calisow wuu halgamay halgankiisa iyo amaalkiisa aan u gudo oo siyaasiya maaragta iga soo jawaab daahiro maaragta inaadeero macaane nimankaasaa bejkaaga 1 milyan jooga aad ugu dakanoobaysaa maalin kasta wejigaaga u gubaysaa daahirow waa iga aqoon baanta social media laakiin wejigaaga kuwan kuwa wejigaaga ha u gubin kuwa wejigooda loo guba maahan wejigaaga ha u gubta maahan kuwan inta siyaasadda ku jirto adiga kaa soo jeeda niman aa wejigaaga u gubta maahan waa danleyna ha ku daalin daahirow xil ha la iska qaado xasanna hawlo kala dhiman xasan asagaaba halkaas isku dhegan hawlo kala dhiman bartaas isku dhegan yahay xasan war ka foq war dhuunta ka foqa isku isciijin asagaa isciijinaya faraha ka qaada hawlo kala dhiman daahir calisow taasaan ku leeyahay caliyaro caliyow xilligaa aad ahayd guddoomiyaha gobolka banaadir iyo nabad iyo amniga hantida ugu badan aa gacantaada soo gelaysay maalintii waxaa laga yaabaa 100,000 inaa akoonkaa ku leexsato oo xisaab lahayn inaadeer macaanu kuwii kula joogay oo adiga kaa agdhowaa ayaga kaasoo aad sheeganaya ee waxaan diidaya feemilka dhexdiisa inaan kala dhex galo inaadeer yaa wax u qabata marka xilka marka ma kugu waardiyaya ma qabiilaan kugu waardiyaya ma waxaan dhaha waa waray waa ina walaalkay waa ina adeerkay waa waray nin siyaasiya anu ku taageeri maayo xiloo qabtay hadda ka bacdi waana ku qatalma hadda ka hor haddaan ku taageeray nin siyaasiya xiloo qabtay ma ku taageeraya aniga qabiilna uga daba lumi maayo ree hebelna uga daba lumi maayo Mustafa Dhuxulow soo laabanaya labadaas nin walaalahee saasaan ugu nasteexeeyey wallaahi bilaahi tallaahi uurkaan kala hadla magaca ilaahay waa iga daacad haddaa maanta garan waayo mustaqbalka iyo ragga maanta shaqaynaya ujeedkooda iyo hadafkooda haddaa maanta garan waayo weligay ma garanayo waan aqaanaa kuwan noocay yihiin walaa faqi walaa mahadsalaad walaa inta ku jirta meeshoo dhan aan aqaanaa niman dantooda yaqaano waayo dan kale ma yaqaanaan carwaa kaasee nin wax idiin tara arka Mustafa Dhuxulow horta hambalyaan leeyahay walaalow xilka waa kula raadshay Mustafa waraa Mustafa Dhuxulow igu geeye walaalow xilka waa kula raadshay Mustafa ragga aan sheegaada ka mid ahayd oo waraaqaha ku qornaa kuwa kalena weli waa iisii dhiman yihiin ilaa waa igu ceebeen amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir in cayra la siiyaan oga oo cabsiyaa ilaa waa igu ceebeen intaan sheegay sawirradooda soo qaatay maantana waa ku soo celinaya sawirradooda kuwa iga dambeeya Mustafa Dhuxulow waa la ii magacaabay guddoomiyaha gobolka banaadir waa la ii magacaabay wiilka duduble oo amniga maaragtay maya guddoomiye ku-xigeenka
howlaha guud iyo guriyeenta ahna waa ii soo socdaa weli lama magacaabin kii cayrna weli waa ii soo socdaa cabsiyo ree xasan ley cali ninka la yidhaha cali magaciisaan kusoo gaabinaya mustafa dhuxulow aad aan qalbiga kaaga hambaryeynaya in adeero maalin dhaweyd baarlamaanka markaa ku hadasha ayaan dhexdaasoo caloosha ay xanuuntay meel cidlaa nooga tegay xasan sheekh hadalkaasaan qaadan waay hadal nin weynaad ku hadasha in adeero markaas shaqada heshid nin kale ha noqon naga warqaba ana kale waryaa mustafa igu dira mustafa dhuxulow igu dira in adeero shaqada markaa hesha naga warqaba ana kale adiguna yaana kaa eed sheegan adiga dhalinyarada kula joogto immigration ka shaqaysanaysa kaa eed sheegan kuwa kalanaysa kaa eed sheegan aniga xil guntadaana si gooniya ii soo fiiri xilga waa gula raadish mustafa dhuxulow igu geeya hadalkan haddaad luuqa ugu diri weydaan ama taleefankiisa ku diri weydaan aqriya adduunyo waa saynaanay adinku u dira mustafa dhuxulow xilka waa kula raadish in adeero calooshaa ka hadashay maalindhood markaad tiri xasan sheekh mal ilaahu nooga tagay qooryo xira allah ka jibsho xasan sheekh wuu ku soo fiirshay agaasimihii wuxuu kaa dhigay hay-adda socdaalku kaa dhigay ama wuxuu kaa dhigay nin aad iyo aad meel u sarreysa ka qabto meesha ugu maalka badneedu ku geeyey in adeerona soo fiiri basaboor diblomaasiyana waa kaa rabaa mustafa dhuxulow basaboor diblomaasiya aan kaa rabaa ama lugahiga aan kuugu imaado ama aan kaasoo dalbado ilaahuma ii samayn weydid waa halgama anigu mustafo waryaa mustafa igu geeya igu dira haddaa intaas ii qaban weydid in adeero macaano haddee anigana sida xasan sheekh amaandhud baarlamaanka ugu istaagtaan kuusoo istaagaa qoryo xira alla kaa jabiyaan kuleeya mustafo wax aagashadii waxaa goysa malahan kuleeyahay anigana calooshaan ka hadlaya sidaa maandhud caloosha uga hadashay hambaryaan kuleeyahay xilkaa lagu magacaabay wallaahan ku dhaartay waa ku faraxsanaa mustafo meel xunay kaa maraysa hambaryaan kuleeyahay in adeero macaane dadkana ha u gafin dhalinyarada ugu tigto meeshana in adeero ha u gafin qof bila aadanayso kaa eed sheegan wax yaraaba dhimanba sanad iyo xoogaa aad joogaysaa in adeero macaano si sharaf leh ummadda soomaaliyeed u hag aad iyo aad